Satoshi Nakamoto ayaa lagu xaday magaalada la yiraahdo Lugano ee ku taal wadanka Switzerland. Booliiska wadankaasi waxay sheegeen inay heleen subaxnimadii hore Isniinta akhbaar sheegaysa in la laasan yahay muuqaalka farshaxan loo ekeysiyay Satoshi Nakamoto oo ah ninka la aaminsan yahay inuu yahay aasaasaha lacagta Bitcoin-ta ee digitalka ah. qof ka tirsan dadka bulshada kriptada ee ku nool magaaladaasi ayaa booliiska la soo xiriiray subaxnimadii hore waxaana uu sheegay in uu la yahay farshaxankaasi oo la suray meel ka mid ah magaalada sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2024 sidaasna uu ugu soo wargeliyay booliiska markii halkaasi ay gaareen waxa ay warbaahinta gaar ahaan bulshada kriptada ee magaaladaas degan ay la wadaageen in arrintaasi ay dib u baarayaan kaamiradaha wax basaasa dhacdadaasina ilaa iyo hadda ay booliisku ku wadaan baaritaan. dadka magaalada degan gaar ahaan dadka la yiraahdo bulshada kriptadu waxay aaminsan yihiin arrintan inay ka dambeeyeen ganacsatada loo yaqaan ganacsatada traditionalka ah ee diidan lacagaha online-ka ah. mar walba la soco Omaya Exchange si aad u hesho akhbaaraad xiiso leh.